بسم الله صومالي وين غايد السلامة يا سودو هذا انتي صومالي نبي محمد مواطنة هذا أوض السلامة يا السلام يا دمان ولا لدي ماشي كجرة سومالي وين أرتو وحان إذن هاي سومالي هنولاتو إلهي وحان كرجينينا عمر ديري عافمات سريعنا وهبكا ومد الصوماليات كوهب سديمك وقوه الرئيسو حنون كان مصيبة دا إنو ومدين الصوماليات إنو إلهي لنع كمرية مركا كوات طلبات وحان إلهي كبرينا نبت وارتا
oo hanka maanta aan leenahay matalaysa ilaahay inuu ilaahay noogu deeqo uu ilaahay noo rajeeyo marka aan u gudagalo mawduuca aan meeshaan u soo galay waxay tahay maanta wadankeena burbaleenka ka taagan insha Allah waxay ku dhamaanaysaa mid khayr qaba nabad waarta Soomaaliya shalay wanaagii iyo quruxdii ay lahayd insha Allah bismillaahi kariim midii soo celin lahayd ayaan horta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala aan sanadkan ka rajeynayaa inay dhacdo waxaan u soo galay shacabkayga Soomaaliyeed media ayaantan waxaan ka maqlaayay mudaharada la kiciyo maxay ahayd toole khilaafay yareelo iska jira aniga ka idil ahaan waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed muwaadinad Soomaaliyeed dhibka maanta burbaleenka muhiimka ah dhacaya oo wadankayga hadda ka taagan waxa waaye shaqsiga ugu horeeyo horta uu damqaayo ayaan ka koowahay anigii intii ila mid ahba waxaan rajeynayaa inta aniga ila mid ah oo igu raay ah in ay dareemayaan meesha uu yahay mihnadeyda iyo hadalkayga meesha uu socdo shacabkayga Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay in badan gaar ahaan waliba reer Muqdisho dhibaatada ugu horeysa maanta dadka ay saameynayso reer Muqdisho waa idinka anaga maanta horaaba dhibaato ay noo soo saameysay qurbaaba na soo daashaday oo maxay ahayd toole dhibaato dad maanta anaga aan noo qalmin oo maxay ahayd toole wadankeena iyo jinsiyadeena iyo yani aan meel yar xataa naga soo gaarin ayaaba hore noo soo daashtay dadka maanta Muqdisho ku nool waxay haystaan wadan maanta aan caadi ahayn nabad aan caadi ahayn alxamdulillah dadka maanta ugu baaqaya in maanta wadankii mudaharaad laga sameeyo oo maanta ay maato ku dhamaato hooyo ay ku dhamaato wiil yar 20 jir uu ku dhamaado siraaxa waxaan u maleynayaa waxa ogolaanaya in maangaab uu yahay reer Muqdisho talada iyo tusaalada maanta aan rabo caaw in aan meeshan idinkugu soo gudbiyaa waxay tahay mudaharaadkan lidinku ololeynaya kaalaya mudaharaad sameeya kaalaya maxay ahayd tooleen soo banaan baxa war waxa loo soo banaan baxaya maanta dhibaatada maanta wadanka ka jirta oo loo soo banaan baxaya maxay tahay dhibaatana ma haysato alxamdulillah nabadaa lagu shaqaystaa wadankii maanta Soomaaliya way soo noqotay dhowr sano ka hor saan may ahayn waxyaabo badan qaldanaa hadaan la isnaanaabinaynin marka kistan yar nabada aan haysano oo haysataan ilaaha idinku dhaarshay inta lidinka aqli badiyo mudaharaad kaalaya sameey lidin yiraahdo ya hooyada maanta banaanka jalaatada ku gadanayso ay ku dhaawacanto wiilka agoonka ah ee hooyadii caawinaya dhowrka caruur haysato dhowrka caruur la dhasheen ee kabaha baalashlaha ah banaanka la fadhiyo ku dhimanaya maxay ahayd tooleen aabaha ilmaha rajada ah haysta ya oo ilmaha yar uu soo baxay kirada guriga ah uu soo macni u soo raadsaday ku dhimanaya de kaasi mudaharaad ma aha marka waa idin bariya reer Muqdisho in dib maanta nagu filan waa soo wada marnay haddaad aqli leedihiin ana waxaan idin leeyahay oo idin ka codsanaa please mudaharaadkan la sheegay in aad ka soo rajeysataan nabadaad ku aadaan suuqiina nolol maalmeedkiina aad ku soo dhacsataan maanta ninka mudaharaadka soo baxay idin dhahay ilmihiisa ma jooga wadanka ogaada waa meel kale u jiraa ay wada geysteen isaga naftirkiisa waqti yar wadanka jooga ma aha nin wadanka jooga laakiin maxaa iga galay wixii dhacaayo iyo waxaan dhacayninba maxaa iga galay dan gaar uu leeyahay
muhiimkayga waxay tahay higsigayga iyo hadalkayga biyadhiciisa waxay tahay mudaharaadka muqdisho maanta la rabo in laga oleeyo in aad ka soo horjeesataan mudaharaadka maanta la rabo in muqdisho laga sameeyo in aad ka soo horjeesataan maati dan uguma jirto shacab dan uguma jiro hooyo miskiina dan uguma jirto aabba ilma raja haysta dan uguma jirto cunug yar oo agoona ama rajaa dan uguma jirto runta markaa idin sheego nin dana gaara fiirsanaya shacabow waad ka soo daasheen nabadi maanta haddii run la sheego muqdisho maanta marka siraaxa loo hadlo iyo shalay kala wiji waayo waxba yaan been la isku sheegin dadaa la dhammaynooyaa kanaa la dhammaynooyaa amisooma maatida iyo hooyooyinka madaxa baabuurta ka marsiinaysay cid ka hadlaysayna ma jirto laakiin alxamdulilah maanta waxaan haysanaa maxay ahay toole waddan nabada oo maanta qof walba wallahi hankiisa uu leeyahay wallahi billahi muqdisho ajaanib oo dhanaa maanta hankiisa ku wada jira maanta inay waddankeennay ama ay wada qabsadaan ama ay ku wada noolaadaan heerkaasaan maraynaa marka hankii iyo wanaaggii noo hormaray yaana laga burburin siyaasi dantiisuu wataa aniga waxaan la hadlayaa shacabka soomaaliyeed shacabka gaar ahaan reer muqdisho waxaan idin leeyahay idinka codsanayaa mudaharaadkaas in aydan dheg jalaq u siinin oo danihiina macnihii idin quseeya iyo wanaagiina iyo nabadiina aad ka fiirsataan maanta marka mudaharaad la sameeyo qaraxyaa kusoo hoos dhuuman kara ama xabadaa dhici kara cunug miskiin ah oo meel iska fadhiya wax gadana ama hooyo miskiin oo wax gadanaysa ayaa maanta ku dhaawacmi karta ama ku dhiman karta shuu istafiid maxaa soo kordhay ama muxuuba noo soo kordhiyey waa waxba dad unbaa nagaga dhintay nabad waa haysanaa mutakabirnimada ma fiicna alxamdulilah alshukru lilah in muddo aba lama haysan marka waxaan idinka codsanayaa reer muqdisho gaar ahaan reer muqdisho inta qurbaha joogta ee olaha wada maxay ahayd tolo in maanta Soomaaliya mudaharaad laga kiciyana walaalayaalow nabadaad ku joogtiin wajigiina waa dhalaalaya caafimaadaad ku baxdaan guriyo kira maxay ahayd tolo haddaydan xataa shaqaynaynin lidinka dhiibayaad haysataan wadanka ha burburinina ilaahay ka cabsada waxa maanta wadanka joogo tii hooyo kula mid ah meesha joogto haddaad ilmo haysato ilmo kula mid ah meesha joogo ilaahay ha laga cabsado hal ra'yi hal aragti intaad wada yeelataan wadanka meel uga soo wada jeesta ana aragtidayda ka idil cadow ahaan waa saas runta idin sheegaya ani mudaharaad hala kiciyo maxay ahayd tole maanta dawlad waa haysanaa waxaa la yiri ninka ku yiraahday maxay ahayd tole dad xume dad laawo dheh ma fahant dawlad waan haysanaa alxamdulilah alshukru lilah wadamada qaaran maanta dhaannaa maanta wadankeena hore u socdaa yacni muhiimadiina maxay tahay in borobaleen le uu taagnaado la isdilo maxay ahayd tole tii shalay aan soo gudubnay macnihii la taagnaado maaha muhiimkaa waxay tahay arrintan waxay qusaysaa dhalinyarada yaryar iyo inta kusoo hanaqaaday nabad la-aan ilaa ay hadda taagan waddankiina u tabaabushaysta danaystayaasha go-aanka gaara waddanka maanta idinkaa iskale oday calool weyn oo idin imaado maaragta oo ilmihiisa inta fogaystay maxay ahayd tole ama reerkiisi fogaystay shul iyo shal ama noolow ama maxay ahayd tole maxay ahayd tole dhimo u soo baxay aan waqtiba u harin yuusan waqtigiis maxay ahayd tole mustaqbalkiina iyo waddankiina idinka burburin please and please
shacabka reer muqdisho waxaa idinka codsanayaa mudaharaadkan in aad ka soo horjeesataan aad meel uga soo wada jeesataan idinkoo weliba garba simane muhiimkan usoo gala waa intaas dhammaan walaalada inta ku jirta oo wada salaamayaa ayaa nuur waa ku salaamaya walaashay dhammaan walaalada inta ku jirtana waa salaamayaa waxaan idin leeyahay soomaaliya ha israacdo waxaan leeyahay tolay soomaaliyay tolay tolay tababushaysta tixgeliya nabado istiriya dhamaan 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 istiriya dhamaan aadaa idiin wada salaamayaa nabad iyo jacayl aan isku ognahay insha allah iyo mudaharaadkaas oo laga soo horjeesto